شيخ سائل كان يقول هاي شيخ دينتم هاي كقبتا عالق مقال بن آدم في الله سمعي أي أدكسنا إيران كان عسكرة دانك كدايقا هو مقالو طبق استير كوفي روسو ساريو هذا طبق اللي بيجي السلام ومدة عادة سائل كان متعلق ناسيه وقبيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سيدي دبا شرع إسلامكو صورة وحرام وحي موقال نولي الله صنعيه وتالوينك صور هذا لتاغو إن لا صنعيه إن لغا قناعصدو انتو ورتو وحرام. أما هدي له يمادو ورسولك صلى الله عليه وسلم واتي حديث علي بصحيح مسلم ورسولك أدري إنه تمثال إيو تالله إيو الصورة والبقية قبل دولك كسر ريا إنه سمه وبربريو على نوو سمية سيدا ننكي بوليسك أسر ريي شرطة ديسا بالهياج الأسدي أيو إسنا أدري. أما هدي له يمادو waxyaabahan iminka cusub ee ganacsigu goobaha carwooyinka maryaha la dhexgeliyo waxay leeyihiin culimadu hadii uu madaxa ka maqan yahay oo wax madaxa laga gooyay uu yahay oo madax lahayn iyo hadii uu wixiyo isku dhan oo madaxii leh ama suurad qof dumar leh ama suurad nin leh farqi baa u dhaxeeya. hadii uu suuradiisi kaamil tahay oo ilaa madaxii u sameeysan yahay وحرام يض إن لا استعماله. هدي مدح لا يهي ومدح كجوان يهي وأنا مدح لهين ولو يبين يمرك مريه دمرك يكوي رجل الله حريو فقهادو قال وحيلا ده وكراه قالنا وحيلا ده وحرام. سيدا أوجد حتى قال علماء وقلانا يسا وحيليهن شروط بالو إيجيا شردك كواد وحرام وين أن لجو حيسين حبنه ترنكا حبنه موقنا يسيد دمر كالناس هودي سيدا ننك رجع حبن كيسي ترنكا وكسو تاجن وين أن وحي أنا كم موقن سي أنقف كدرين كيس أسود شيدا مريقا قاون وعوردي وقاون وين أن لجو حيسينين marka hadii mariya caadi loo xidhayo surna aanu wixii lahayn naf kama suurowdo waxaan suurad lahayn waxaan madax lahayn naf kama suuroobayso sida awgeed maradaan naf ka suuroobaynin shuruudahan baa loo eegayaa wax baas ama leeyihiin hadii laakiin uu madax leeyahay mamnuuc way waa xaraam wallahu a'lam. خير بان الله سيخيها شيخ سائل كان على بعض الفليه هاي شيخ وما هي حكمك قف ورانا هي وحنا هي علمان المسلمة أما الليبرالي المسلمة ما صدق أنت إن قف مسلم وهذا أفكار هذه أنا مسيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. قف كاسي علمانية هي الليبرالية وحبك أقونين. علمانية قرنك تضبية تمنات بي صوب حذي يوروب بي كصوب حذي إلى سقالية تمنات قرنك سقالية تمنات بي بريق يوروب يفك فافتي آخر كي سقالية تمنات بي مصر إيا إيران إيو سوريا إيا لبنان إيو مالها سوق قادي قرنك لباتنات بي تونسيا إيو الدول العرب أي سوق قادي مقع الله قرحية علمانية والدين لآن ولا دينية والدين لآن سيدا وقد با مقع الدين لآن سيدا الله قد دين بايا الله هوية أو وحا ليري علمانية ليري سيدا وقد علمانية دو إيا وحا ليبراريقا أما الشوعيقا إيا بلاداسي إيا إسلامكم مالكم وضا كل مكران وحيليهن ما لقيسر لقيسر وما لله لله diinta waxyaabaha aaminsan yihiin waxa kamid ah ilaahaba ma jiro qaarkood waxay aaminsan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosha bani aadamka iyo sida uu noolaanayso naftu iyo shacabkii ummadu iyo ilaahay waxba iskama khuseeyaan
waxay aaminsan yihiin in maxaan ku idhaahdaa islaamka iyo qur'aanka iyo sunnaha nebiga iyo way tacninayaanoo waxay leeyihiin wax adduunka la janqaadi kara ma aha oo waa ta'ahur. islaamka oo dhan waa dib u dhac, xadaaradda lama janqaadi karo. dumarka xorriyaddoodii baanu doonaynaa ayay leeyihiin oo meel looga dhacay oo islaamka ay u duurxulayaan. fiqiga iyo axkaamta islaamka wax laga soo dheegtay giriigii hore ee baaba'ay inuu yahay bay aaminsan yihiin. sidaa awgeed meel kuma wada kulmi karaan cilmaaniyad iyo islaam, meel kuma wada kulmi karaan. nin guursanaya siduu sheeganayo iyo qof dumara u baxaysa, waxaasay aaminsan yihiin. ummaddu qofku wixii diin ku saabsan nolosha dadku shaqo kuma laha. caqligaasi wuxuu ogolaadana waa la ogolaanayaa, caqligaasi wuxuu diidana waa la diidayaa. diin iyo ilaah shaqo kuma leh. marka waa khalad weyn, ama qofkaasi waa jaahil oo islaamnimadii iyo baanu garanaynin cilmaaniya waxay tahay oo jahli baa ku sugan, ama waa munaafiqnimo dad diintii isqarinaya oo nifaaq ku jiro weeyaan. qofka muslimka waa xaaraam inuu waxaa sheegto isagoo muslim ah, maxaa yeelay islaamnimadu nolosha iyo diinta way isku xidhan tahay. qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin. jazaaka allahu khayran. saa'ilka sheekh wuxuu leeyahay, sheekh waxaa baryahan dambe soo batay dadka qaar ka mid ah oo marka ay dhiganayaan xafladaha in ay baraha bulshada ku baahiyaan muuqaalo aan fiicnayn, sida dumarkii oo aan asturnayn iyo waxyaabo gaar u ah ninka iyo xaaskiisa qoyska. bismi illahi raxmaan raxiim. nicmada ilaahay uu bixiyo waxay ku sugnaataa in lagu mahadnaqo ilaahay. lain shakartum laasiidannakum. nicmada waxaa lagu waayaa in ilaahay lagu caasiyo ayaa lagu waayaa. walain kafartum ina cadaabii la shadiid. sidaa awgeed sharcigu waa xaaraam waxaasi, in dad meel isugu yimaadaan oo waa xaflad aroos iyo xaflado kale la dhigto oo dumarku isqaaqaawiyaan oo timahooda qaarqaawiyaan, baryo khafiifa la xidho, in la jaaso, muusig iyo heese la daaro, in maxaanku idhaa rag iyo dumar isdhexboodaan, in lagu saamaleelo oo saacado badan lagu soo jeedo, in baraha bulshada lasoo dhigo, waxaasoo dhani waa xaaraam. rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam, idaa lam tastaxyi fasnac maa shi't. haddaadan xishoonayn waxaad doonto samee. xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay. markuu iimaankii daciifo waxa weeyaan qofku wax badan waan suubanayn baa ka imanaya. sidaa awgeed waxaasi waa xaaraam, ma bannaana. ilaahay ha looga cabsado subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha gabadhu quruxdeedu kuma jirto inay isqaawiso ama timaha ama luqunteeda ama cududaha iyo dhudhumadeeda ama jidhkeeda qayb ka mida ay qaawiso. qurux ma aha, diinna ma aha. waa ciqaab iyo cadaab ay jidhkeeda qurux badan u soo jiidayso iyo cadho ilaahay. marka aynu ka waantownan leenahay dhallinyaro iyo waayeelba arrintaas. cidda ku shaqaysata qolyaha miidiyaha ee aroosyada iyo waxaa soo duuba waa u nasiixaynaynaa. alla ka cabsadaynu leenahay. wixii wanaagsan ee khayra laysu kaashadaa, wixii xun laysuma kaashado. waxaasoo kale ha duubina oo miidiyaha ha dhigina. dembi iyo ceeb iyo ciqaab baa ka imanaya ilaahay agtii. wallahu aclam. sheekh maxamuud, sheekhu ugu dambeyn waxaa soo batay sida aanu guddigii u xilsaarnaa su-aalaha aan qoraynay inta badan inay su-aala ay soo laalaabanayaan isu egan, dadkuna ay u badan yihiin. qaar baan ka soo qaadanay, waxaan u aragnay marka inay ka tala bixin culimmadu iyo baraarujin ay sameeyaan. arrimaha sheekh maxamuud waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa, ilaalinta salaada iyo jamaacadeeda, la dhaqanka ruuxa dayaca waajibaadka alleh, ruuxa ku ibtiraysan macaasida qaarkeed,
iyo ruuxa ku ibtilaysan daawashada aflaanta marka si kooban in baraarujin looga sameeyo ayaan maaragtay culimada u soo gudbinay soo dhawsho. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوة عوان كذا أي وحوها آيات القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بحولنا هاي قفك قرآنك مسلم كاهي هدو قاطع الراعه wadada ugu wanaagsan buu quraankan kugu hanuuninaya cilmiga adduunka iyo cilmiga aakhira quraankaas ku dhan quraankaasi in la raaco oo la akhristo oo lagu cibaadeysto in isu dardaarmayna rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixa ah qofka jecel qofka ku farxaya oo jecel ilaahay inuu jeclaado qofka ka farxinayso alla inuu jeclaado oo rasuulkiisa jeclaado musxafka ha akhriyo buu nabiga alayhi salaatu wasalaam quraanka in la akhriyo cibaado lagu cibaadeysto oo ka qiimo badan ma jirto waa isu dardaarmayna quraanka aakhirana uu ku shafaaco qaadaya hadaa dayacdana aakhiro waa ku ashtakeynaya salaadu inna salata ala almu'minina kitaban mawquta inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta salaadu waa shay farada dadka mu'miniinta waa xiriirka adiga Allah idin dhaxeeyo subhanahu wa ta'ala rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofka salaada shanta salaadood meesha laga aadimo tukada oo ilaaliya oo weysadeeda ilaaliya tukashadeeda iyo waqtigeeda rukuucdeeda iyo khushuuceeda ilaaliya ballan ilaahay wuxuu ugu qaaday inuu dambigiisana dhaafo jannana uu geliyo qofkii dayaca laakiin ilaahay agtii wax ballan u yaala ma jirto macaasida iyo xumaanta qofku filma xun iyo macaasi xumaan uu daawanayo ha iska daayo Allah subhanahu wa ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara miyanu ogeyn ilaahay inuu arkayo subhanahu wa ta'ala xitaa hadaad nafta hore uga goyn kari weydo warqad weyn intaad soo qaadato A4 ama A3 intaad soo qaadato ku qor aayada alam ya'lam bi anna Allah yara oo marka qolka ku dhajisi markaad aragtid ba aad uga baqato oo Allah wuxuu xusuusato subhanahu wa ta'ala qofka macaasi nafiya shaytaan baa ugu heliya waa dambaabaya uu khaldamaya wuxuu soo maray Abu Darda nin wax khalad iyo macaasi ku dhacay oo aad u maagayaan oo caayayaan ehelkiisii war ha maagina hadduu ceel ku dhaco soomaydinaan badbaadisan oo ceelka kama soo saarteen ninkii khamriga cabay rasuulka loo keenay ha caayina ha nacdalin shaytaanka ha ugu kaalmaynina buu nabigu alayhi salaatu wasalaam imaam an-Nawawi oo maalin socda ayaa nin imaamad kala cararay markaasuu imaam an-Nawawi ka daba cararay markaasuu wuxuu ku yiri imaam an-Nawawi alayhi rahma famallaktuka faqul qabiltu warwaaku siiye wa aqbalayde warwaaku siiye baashe warwaa aqbalayde isna wuxuu yiri ku qabana way iskala cararay baashi Malik ibn Dinar baa tuugu soo dhacay markaasuu aqalkiiba wuxuu qaataba ka waayay markaasuu qabtay war waxa doon oo naga qaadato nooma yaalaane wax aakhira aynan ku soo diyaar ma u tahay kaasuu yiri ha orado weysayso laba rakacdood ku fariiso salaadiis wuxuu masaajidka u kaxeeyay nin baa yiri Malik ibn Dinar waa kuma ninkan kula socda waa nin noo yimid inuu naxado annagii baa isaga xadnay buu yiri isaga baa xadno soo qaadnay marka dhalinyaradu iyo dhaqankaas in aad iyo aad dadka macaasida ku jira la waaniyo mar wala canaanan mar wala loo naseexayn ruuxba loo sheegi laakiin lama goynayo hadaan goyntiisu maslaxadii aanay ka dhalanaynin